ra-iisul wasaaraha dalka Norway Jonas Sture ayaa ku dhaleeceeyay ninka ugu taajirsan adduunka Elon Musk inuu faragelin toos ah ku hayo siyaasadda arrimaha gudaha dalal badan oo ay ka mid yihiin Jarmalka, Ingiriiska iyo Talyaaniga. ra-iisul wasaare Sture ayaa sheegay haddii uu Elon Musk soo farageliyo arrimaha siyaasadda gudaha dalka Norway iyo doorashooyinka la qorsheynayo bisha September, uu Norway kala kulmi doono siyaasad midaysan oo ka dhan ah damaciisa faragelinta. Sture ayaa sheegay in arrintan ay tahay wax laga walwalo maadaama ninkan uu saameyn xoogan ku leeyahay baraha bulshada uuna yahay hantiile si toos ah faragelin ugu sameeyo arrimaha siyaasadda gudaha dalalka kale, isagoo intaa ku daray in waxa uu sameynayo aysan ahayn wax dabiici ah oo ka dhex dhici karo dalalka dimuqraadiga ah iyo kuwa xulafada ah. Elon Musk ayaa ku qarash gareeyay in ka badan $250 milyan si uu dib ugu soo laabto aqalka cad ee Mareykanka Donald Trump, taa oo uu ku guuleystay. wuxuuna hadda door muhiim ah ku leeyahay siyaasadda Mareykanka iyo sidoo kale maamulka cusub ee Mareykanka. dowladda Jarmalka ayaa bishii hore ku dhaleeceysay Elon Musk inuu faragelin toos ah ku sameeyay arrimaha Jarmalka si taa la midna uu doorashooyinka dalkeeda soo farageliyay oo uu taageeray xisbiga midigta fog ee AfD. wuxuuna ra-iisul wasaaraha talada haya ee Jarmalka Olaf Scholz ku tilmaamay nacas. Elon Musk ayaa waxa uu leeyahay barta X ee hore loo oran jiray Twitter, waana milkiilaha iyo maamulaha guud ee shirkadaha Tesla iyo SpaceX, wuxuuna safka hore kaga jira dadka ugu saameynta badan adduunka. booliiska dalka Norway ayaa bilaabaya mashruuc cusub oo tijaabo ah oo ku saabsan kaamirooyinka codadka iyo muuqaalada soo gudbiya ee lagu xiro jawaabka shaararka iyo jaakadaha saraakiisha booliiska ee ka howlgala guud ahaan dalka. mashruucan cusub ee tijaabada ah ayaa laga hirgeli doonaa degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee dalka Norway, waxaana hore u isticmaalay booliis kala duwan oo caalamka ah. tijaabada mashruucan ayaa sida la qorsheynayaa socod doonta 12 ilaa 16 bilood, wuxuuna qorshaha yahay in la fiiriyo natiijada ka soo baxda maadaama hadda dhacdooyinka ay ku lugta leeyihiin booliiska ay duubaan kaamirooyinka ku xiran wadooyinka iyo dadka wadooyinka maraya moobiladooda waxa ay ku duubaan. waxaana mararka qaar dhacda doodaha ka socda maxkamadaha inaan loo helin sawirro ama muuqaalo ama codad ku filan. hay-adda shaqaalaha iyo daryeelka bulshada Norway NAF iyo ururka warshadaha dalka Norway NHO ayaa maanta oo Isniin qalinka ku wada duugay wada shaqayn dhexmari doonta 5 sano oo soo socota, taa oo ay ku hirgelin doonaan shaqaalaysiinta in ka badan 150,000 oo shaqaale cusub ah. mashruucan ayaana daaran ilaa 2030. wasiirka shaqada Norway Tonia Brenna iyo madaxa hay-adda NAF Hans Christian iyo madaxa ururka NHO Ole Erik oo wada jira ayaa maanta qalinka ku wada duuga mashruucan cusub oo laga hirgeli doono guud ahaan gobolada iyo deegaanada dalka Norway. wada shaqaynta labadan hay-adood ayay sheegeen inay kordhin doonto shaqaalaysiinta dadkan cusub, waxayna sheegeen in wada shaqayntooda ay ka bilaaban doonto maanta oo Isniin ayna ka wada shaqayn doonaan guud ahaan gobolada, degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee Norway. waxayna intaa ku dareen in ay awood u yeelan doonaan wada jirkooda iyo wada shaqayntooda in ay shaqaalaysiiyaan 5 sano ee soo socoto in ka badan 200,000 oo shaqaale cusub ah guud ahaan dalka Norway. waxaa saakay oo Isniin ay cilad farsamo oo ay soo wajahday adeega online-ka ee bangiga ugu weyn dalka Norway ee DNB. si taa lamida ciladan ayaa waxa ay haysataa abka lacagaha la isugu diro ee Fibiska. DNB ayaa boggeeda internetka ku soo qortay inay ka shaqeynayaan sidii ay ku xalin lahaayeen ciladan soo wajahday, waxa ayna sheegeen inay ku dadaali doonaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u xaliyaan. adeega ID Portanka ayaa aad muhiim u ah guud ahaan dadweynaha ku dhaqan dalka Norway, waxaana loo adeegsadaa marka la isticmaalayo arrimaha canshuuraha, caafimaadka, bangiyada, boostiyada iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah dadweynaha ku dhaqan dalka Norway. agaasinka digitalisinka dalka Norway ayaa sheegay in ay ciladahani jira ka imaanayaan dhanka shabakada Tietoevry, taa oo qaabilsan adeegyada aan kor ku soo xusnay. halka ay wararka ugu door karoon maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdullaahi Shiine.